kalfadhigii saddexaad ee yeeshaan golaha deegaanka ee degmada Caynaba ayaa maanta si rasmi ah uga furmay howlka dowladda hoose ee degmada Caynaba. kalfadhigani badiba waxaa ka soo qayb galay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Caynaba. ugu horeynba waxaa warbaahinta uga warbixiyay kalfadhigani xogayaha dowladda hoose ee degmada Caynaba Cumar Maxamuud oo Muuse. isaguna waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Caynaba Xasan Yuusuf Aadan. kalfadhigani waxaa goobjoog ka ahaa isaguna barasaabka gobolka Saraar Maxamed Cismaan Xaaji Axmed. waxaynu furanaa kuleyba kalfadhigeennii saddexaad ee golaha deegaanka degmada Caynaba ayaa halkan ka furmaya bishii 6deedii gudoomiyaha gobolka oo saaka inaga soo qayb galay kalfadhigan sidoo xoogaa ugu noqdo furitaankeena iyadoo goluhu dagaar isu haan doono ajadihiisa iyo doodiisa iyo waxyaabaha horyaala oo dhan kuleyba waa waajib ama waa sunnad dawladnimo oran karaa in mas'uuliyiinta dawladdu markasta ay la socdaan golaha deegaanka maadaama uu ka mid yahay hay'ad dawladeed uu yahay madaxda marba inala joogtaa inay ogaato kalfadhiyada iyo sida wax u socdaan systemka. saaka waxaanu isugu nimi inaynu furanno kalfadhigeennii saddexaad ee golaha deegaanka degmada Caynabo insha Allahna ay ka soo baxaan wax gobolka iyo golahaba anfaca. kalfadhigaasoo qodobada lagu soo qaadi doono ay ka mid yihiin warbixintii maamulka iyo xisaab xidhkii 6 biloodkii hore tagay iyo ansixintii xeer hoosaadka iyo gurmadka haddii aan ladno waqtiga lagu jiro abaaraha iyo qodobadaas ay ka soo bixi doonaan iyada si dadka wax loo tari lahaa insha Allah wixii loo qaban karo. kulli maanta kulankan anigana aan idin soo qayb galay wuxuu ka mid yahay kalfadhiyadii runtii golayaasha deegaanka ay qabsan jireen ayuunbay degmada Caynabana ama gobolka Saraarna ka mid yahay. waxaan idinka rajeynayaa in si magaranaysa haddii ay ku jirto aqooni runtii uga doodaan oo wax raandhislana ay ka soo baxaan oo innaga iyo bulshadeena ay wada anfaca. kalfadhigan ay maanta yeesheen golaha deegaanka ee degmada Caynaba waxaa lagaga dooday miisaaniyadda golaha deegaanka ee degmada Caynaba iyo abaaraha ka jira gobolka Saraar sidii wax looga qaban lahaa. sidoo kale waxa ay soo bandhigeen in la sameeyo wadooyin cusub. waa Cali Aadan Dirra Cali Taani wararka telefishinka on cable magaalada Caynaba.